howlgalo gaar ah ay sameeyeen ciidamada BSF ee dowladda Puntland ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen saddex rag oo ka soo jeeda qoomiyadaha orimada ee deegaanka Itoobiya kuwaasi oo Puntland sheegtay inay ka tirsan yihiin kooxda Daacishta Soomaaliya war ka soo baxay ciidamada BSF ayaa lagu sheegay in ragani saddexda ah la qabtay xilli ay ku sugnaayeen dhulka buuraleyda ah ee Timiro oo ka tirsan gobolka Bari iyaga oo doonaya inay sahay iyo qalab ciidan u geeyaan xubno kale oo ka tirsan kooxda Daacish kuwaasi oo ku sugan duleedka buuraleyda sidoo kale warka ka soo baxaya ciidamada BSF ayaa waxa lagu sheegay in ragani ay qayb ka yihiin 7 nin oo xogtooda horey loo hayay kuwaasi oo la ogaaday inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish ee ka howlgasha deegaanada Puntland ee buuraleyda gobolka Bari sidoo kale BSF ayaa sheegtay in saddexda rag ah ee baaris dheer ah lagu sameeyay kadib ay qirteen kamid ahaanshaha kooxda Daacish uguna gudbin jireen sahayda iyo agabka kale oo ay u baahan yihiin magacyada ragani iyo kuwa ka maqan gacanta ciidanka ayaa la baahiyay iyadoo la sheegay inay dhamaantooda yihiin dadka oramada ah ee tahriibka ku tagay magaalada Boosaaso deegaano badan oo ka tirsan dhulka buuraleyda ah ee gobolka Bari ayaa waxa ku sugan xubno ka tirsan al-shabaab iyo kooxda Daacish waxaana mararka qaar ay weerar la beegsadaan ciidamada Puntland. Xabsaq Cabdi Ibrahim, M24 TV, Muqdisho.